مساجد إلهي سبحانه وتعالى إن لا كوريالو أو لو حرناادو أو لا soo xaadiro oo laga qayb galo xuduurka masaajiddaasi aad ay muhiim u tahay nabigeena sallallahu alayhi wa sallam markuu ugu horeysay uu tagay magaalada Madiina wuxuu ku bilaabay inuu dhiso masaajid dhowr iyo toban maalmood asoo rasuulku jooga sallallahu alayhi wa sallam masjidku ugu horeeyay uu aasaasay markuu Madiina gudaheeda soo galana masjidkiisii masjid rasuul sallallahu alayhi wa sallam ayuu aasaasay marka binaa'ul masaajid iyo diyaarinta masaajidda waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan diinta islaamka xilliyadii horena masaajiddu waxay ahaayeen saldhigga muslimiinta meesha muslimiinta laga hago wax looga sheego akhbaaraadka lagu kala qaato nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa hadduu ciidamo dirayo masaajidku ka diri jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam saldhigga ugu weyn ee muslimiinta masaajidda waayahan dambe xoogaa waxaad moodaa masaajid in laga hijrooday oo hoteeladii iyo biibatooyinkii iyo maqaayadihii la camiray oo masaajidadii in badan in lagu tukado mooyaane aanan si kale loogu nagaan waana meesha ugu muhiimsan oo mudan in lagu nagaado nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay toddoba sinfi oo harka ilaahay ama harka carshiga Allah subhanahu wa ta'ala harsanaya maalinta qiyaamo yawma la dhilla illa dhilluh toddobada sinfi kama fi hadith abi hurayra waxa ku jira ورجل قلبه معلق بالمساجد نين قلبي جيسا لغو حرين مساجد حديث كاسي علماء شراح لا مركا يشرح يا وحي لي حديثك وحلو رجيلا واقف مروه بمساجد كجعل هذو كما قيها حاجه يا ذنب اوغا مقيها اي مروه بمساجد انه كنا قالوا جعل مركا مساجد ان قلبينا كو خرناطو لا جعلاado waxay keenaysaa in maalinta qiyaamo ilaahay subhanahu wa ta'ala kureelka iyo haraadka faraha badan la jira maalinka in laga hariyo harka ilaahay subhanahu wa ta'ala oo aan kuleelkaas faraha badan aan la arag dadka masaajidda